aad u mahadsantihiin nimankan dhalinyarada ah ee gurigeyga igu soo booqday su'aasha aad weydiiseen ee ah arinta xidigaha geeska la xiriidha runtii fikirka aan ka qabo ha ii dambeeyo laakiin waxa aan aad ula yaabay oo aan la yaabay gabar weyn oo fanaanada oo Nakruuma la yiraahdo oo si khiyaaliya u barooranayso ooyeysay Nakruuma waa gabar la yaqaano oo ka soo jeeda fanaaniinta Soomaaliya Nakruuma waxa aan leeyahay maalintii ay suugaan yahanada reer Soomaaliland ee khaaska ah gaar loo ugaarsanayay ee aqoontooda iyo maskaxdooda lagu ugaarsanayay uu kamid ahaa Cabdi Qays uu kamid ahaa Hadraawi uu kamid ahaa gaari Allah u naxariistay uu kamid ahaa Aadan Tarabi Nakruumay waxaad ahayd naag dawladda u shaqaysa waxaad ahayd naag power leh waxaad ahayd naag inaadeerkeed dalka xukumo maxaad maalinta uga hadli weyday xidigaha geeska la siinayay oo khiyaaliyood bisad lagu moodo maxaad hadda ugu ooyeysaa maalinta maxaad wax uga qaban weyday maxaad shacabkayaga iyo dadkayaga aad u kicinaysaa waxa aan leeyahay hablaha yaryar ee iyaga la sheegayo way ku mahadsan yihiin shucuurtooda waxa laga yaabaa inay si daacadnimo ay ka ahayd habla yaryar oo fanaaniina iyo waxba kama ogaa markii la isu kaaya raacay haddaan nahay dadka reer Soomaaliland ee lagu maadayay dadka Nakruumay waa joogtay naag fanaanada codkeedu meel dheer gaaray aad ahayd maxaad u hadli weyday qarankoodii bay dhex joogaan xidigaha geesku sidii la rabo ha laga yeelo adiga hawl ku taala ma ah xaafad waxay ugu wareegtaa waa xasarad baroortu orgiga ka weyn Nakruumay dadkayagaad kicinaysaa ma kicin kartid waxa aan leeyahay shacab weynaha reer Soomaaliland iyo cid kasta oo jiritaanka Soomaaliland ku faraxsan waanu ka xunnahay xidigaha la xiray xidigaha geesku waa laf dhabarta fanaaniinta reer Soomaaliland aniga oo ku hadlaya codka saxaafadda Soomaaliland codka fanaaniinta reer Soomaaliland sanka codsanaya wasiirka inuu xorriyadooda u sii daayo fanaaniintana xeer loo dhigo dalka aan ogoleyn jiritaankeenna xeerka inooga yaala mid shacabka iyo dadka iyo fanaaniintuba ay ogaadaan ha ahaado si uu qofku marka uu talaabayo uu og yahay soo noqodkiisa si sharciga la waafajinayo nooca uu yahay uu u ogaado taasan ka codsanaya wasiirka inuu xorriyadooda u sii daayo fanaaniintayadii weeyaan adduunkaan uga jecelnahay website-yo Facebook-ayga markaan soo dhigay maanta dumarka aan ka hadlayo ee ay Nakruumi ka mid ka tahay hablaha yar xaasha afkiiga kaga dhici maayo iyaga ay Nakruumi ka mid tahay aan ka hadlayay waa la bedelo xilwa fanaanadii ugu horeysay ee ku taageerta xabsiga ma ogoli habeen inay qodaxi muddo xidigaha geesku waa laf dhabar bay aniga si gaar ah iigu yihiin soo waxaad fahanteen maaha waxa aan mar labaad iyo mar saddexaad aan ka codsanayaa dawladdeeda sharafta leh ee qiimaha iyo qadarinta naga mudan dastuurkayaga ayaanu anagu waafaqsanahay waxa uu qorayo waxaan nahay fanaaniin reer Soomaaliland xidiguhu cod dheer iyo cod gaabanba waxay ku sheegeen inay yihiin fanaaniin Soomaaliland ris ah maxaa qofka noo soo baxa ee role model noo ah maxaa photoshop u sameynaysan calankiina maxaa idin daba dhigay xidigaha geesku waa Somalilander ha lagu tixgeliyo xidigaha geeska heesaha qaranka ay u qaadeen heesaha ugu qiimaha badan ee qaran loo qaaday xidigaha qaaday they are Somalilanders mar labaad mar saddexaad mar afraad riyadooda u sii daayo waxaan oranayaa kiwi haylaysateeyo in habeenkii habeenkii baa jeceshahay ha iyo xidigaha geeska oo dhan okay maxaad leedahay marka xidigaha geeskaan jecelahay haye halaysi daayo okay